bismillahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada shabakada sologroups.com ee laga barto cilmiga ICT iyo English oo ku baxa luqadda afka Soomaaliga. Magacaygu Cabdinaan Ismaaciil. Mar walba waxaad igala soo xiriiri kartaan info@sologroups.com. Security waxaan baran doonaa basic Facebook and email security 2021. Inta badan ayaamahan dambe Soomaalida isticmaasha baraha bulshada kuwada ugu muhiimsan sida Facebook, Instagram, Snapchat iyo waxyaalaha kale cusub ilaa iyo Twitterka waxay yiraahdaan waxa laga jabsaday oo laga wareegay. Waxaan filayaa shabakada sologroups.com waxay samaysay 300 oo casharo kala duwan, laakiin inta badan ma raadino, YouTube-na kama raadino, isla markaana waanu isdhiganaa, waxaan idhaahnaa waxba kaama qaldana. Laakiin inta laga jabsado ayaa lagu dhibaataynayaa baraha bulshada. Waan aragteen ayaamahan dambe especially 98% waxa lagu dhibaateeyaa dumarka. Marka waxaan filayaa casharkan haddii aad raacdaan arrimahaas waa ka badbaadi kartaan. Kaasoo ah dhanka Facebook aan ku eegi doono waa very basic, qof walba yaqaano, laakiin dadka intooda badan ma eegaan. Waxayna inta badan sameeyaan emailkooda iyo Facebookooda iyo accounts ay ku leeyihiin baraha bulshada ayay hal password ka wada dhigan iyadoo email. Marka hal meel haddii furihiisa la helo inta kale way ku dhamaatay. Marka waxaan eegaynaa Gmail, Hotmail iyo Facebook si secure laga dhigo 100% cidna aan u soo geli karin oo si fudud aan u jabsan karin adigoo mar walba isticmaalaya password aad u adag. Marka waa secure before it's too late. Security-ga adkee inta aan lagaa dabimaanin oo too late aysan noqonin, kaasoo aad ka baran doontaan sologroups.com. ugu horeyn waxaan ku bilaabaynaa dhanka iyo Facebook. Facebookan waxaan ku samaynaa security-ga tijaabooyinka kala duwan iyadoo mar walba ay ka faa'iidaystaan ardayda sologroups.com. Markii aad soo gashid, markii aad daawatid casharkan waa muhiim. Actionkan waa inaad hore ka samaysaa si security-ga kugu adkaado. Dhankan midig ayaa tegaysaa, fallaarta account-ka ku qoran tahay, waa soo degaysaa, setting and privacy ayaa tegaysaa, riixaysaa, kadibna setting ayaa tegaysaa. Markii aad tegtid waxaad u baahan tahay kaliya waxaad aragtaan magacayga ayaa ku jira, email-adayda ayaa ku jira, halkan saad ku aragtaan. Kadibna waxaad tegaysaa meesha ku qoran tahay contact waxaad arkaysaa email-adan uma isticmaalno wax kale, waxaan u isticmaalnaa security kaliya aan u isticmaalnaa iyo tijaabooyinka aan ku samayno shabakada sologroups.com. sologroups.com info@sologroups kaliya laga soo xiriiri karaa. Marka waad aragtaan account-kii, laba email ayaan geliyay, sologroups@gmail.com iyo soloportal@gmail.com. marka waxaa muhiim ah markii aad aragtid waxa ku jira ma xasuusataa emailkaaga passwordkiisa. Dadka intooda badan waxay yiraahdaan 10 sano ka hor ayaan sameeyay mana xasuusto. taasna dhib aad u weyn ay kuu keenaysaa, sababtoo ah haddii uu kaa xirmo ama aad ilowdid telefoonkii uu kaa lumo, emailkan ayaa badbaado ku ah. marka emailkan qofka isticmaalaya maanta gal ma xasuusataa passwordkiisa. haddaadan xasuusan waxaad samayn kartaa in aad ku dartid mid kale haddii aad passwordka aad taqaanid. waa muhiim. marka waxaad samaynaysaa oo keliya halkan ayaa tegaysaa, waxaa leedahay at another email address oo mobile. anigu inta badan waxaan idhahdaa mobilada way lumaan, emailka ayaa kasii muhiimsan. haddii aad xasuusatid mar walba laba waa inay kugu jiraan, hal keliya ha ku daynin. primary qaabka looga dhigo waxay tahay kan haddii aad doonaysid inaad primary ka dhigtid, kan ayaa leedahay make primary, kan ayaa hoosta soo galay, kadibna kan waxaa leedahay remove ayaad leedahay. marka cashar horna waa uga sameeyey qaabkana waad raacaysaan. marka waxaad leedahay at ayaad leedahay. markii aad tidhaahdid halkan ayaad tegaysaa, emailka ayaad ku daraysaa. markaad tidhaahdid code ayuu emailkaagu dirayaa, kadibna confirm ayaad ku samaynaysaa, emailkaagii meesha kuu gelayaa. haddii aad doonaysid phone number ayaa leedahay mobile. Kenya ayaan joogaa iminka, mobileka ayaad gashanaysaa halkan. markaad gelisid wuxuu ku leeyahay automatically mobilekaaga aad. marka mobile ayaan gelinayaa, Kenyaan joogaa hadda. mobilekayga wuxuu ka bilowdaa, inta kale waa qarsan yihiin, 745 ayuu ka bilowdaa iyo inta kale ugu dambaysa. marka sababtaan ugu darayo waxaanu samaynayna waxa la yidhahda two factor authentication, kaasoo ah firewallka ama derbiga kaa celinaya in lagaa jabsado. marka maxaan samaynaya? waxaan leeyahay continue ayaan leeyahay. tabcan automatically aqbali maayo, code ayuu ii soo dirayaa. marka codekaas markuu ii soo dhaco, telefoonku iiga soo dhaco, isla markii wuxuu siinayaa option ah in aan ku diri karo. waa ii soo dhacay codekii, wuxuu leeyahay codekaagu waa 74246 ayuu yidhi. waa one of code uu kuu soo dirayaa. kadibna waxaan leeyahay confirm. markaan idhaahdo wuxuu soo gelayaa meeshii loogu talagalay ayuu gelayaa. iminka telefoonkan ayaa ugu xaraysa. marka dhowr telefoon ilaa iyo 5 ilaa iyo 8 telefoon waa gelin kartaa. markaad gelisid kadib waad maqlaysaa iyo 10 SMS
waad arkaysaan update charge my apply waddankaa joogsaday ku xiran tahay okay ayaan leeyahay marka telefoon ayaa igu jira marka muxuu iga anfacayaa securityga ugu wanaagsan ee la doonaya iminka inaad samaysid waa dhanka iyo waxaa la tegayaa security and login ayaa tegaysaa ugu horreyn waxaad eegaysaa meelaha looga jiro waad ujeeda window PC iminkan isticmaalayo Kenya Nairobi ayaan kaga jiraa iPad waan ka isticmaalaya 10 sac kor ayaan ka isticmaalayay marka haddii aad halkan Seymour aad tirahdid meelihii kale Nairobi iyo London haddii aadan aqoonin halkan inaad kaga jirtid haddii passwordkaada xasutid waxaad tidhahdaa log out of all sessions ka saraya leedahay gebi ahaan waa ka tuuraya qofkii xataa markaa ku jira laakiin security password ma ahan ogaada security is not a passwordka waxba kuu tari maayo hadduu fudud yahay waxaad tegaysaa halka hoose adigoo ku jira meeshan security and login waxaad tegaysaa halkan meeshan ayaa ah meesha laysku dhaafay oo cidna aan kaasoo geli karin waxaad leedahay use two factor authentication edit ayaad leedahay halkan kadibna wuxuu leeyahay laba option ayuu leeyahay optionkan telefoonka hadda aan ku darnay aan isticmaalnay use text message kadibna telefoonkii halkan ayuu qoran yahay waa qarsan yahay intiisa badan waxaan leeyahay kan ayaan doonaya inaan isticmaalo next ayaan leeyahay iminka wuxuu leeyahay passwordkaaga geli ilan waxaan gelayaa meel security password haddaadan haysanin waxba ma qaban kartid marka anigu passwordkayga ma ilaaba inta badan submit ayaan leeyahay waan geliyey marka code ayaa ii soo dhacaya waa kan numberka Kenya ayuu koodkii ugu soo dhacayaa oo 22 ugu dambeeyo markuu ii soo dhaco waxaan samaynayaa isla markii hore ayaan ka gelaya ii soo dhacay numberkii wuxuu leeyahay numberkaaga waa 8 eber waa 1 of 3 waxaa kaloo ku xiga 8 3 ayaa ku xiga verification ayuu ku samaynayaa waad ujeeda two factor authentication is on markuu ku yidhahdo numberkan oo sidan ah way dhammaatay haddii telefoonkaaga isla qol aad ku jirtid qof kale kula fadhiya passwordkaaga u helo uu ka soo galo oo damxo waxaa kuu soo dhacaya code ayaa kuu soo dhacaya codeka markuu kuu soo dhaco wuxuu ku leeyahay okay ayaan laakiin waa computerkayga wuxuu ku leeyahay telefoonkaaga waxaa laga soo geli rabaa meeshas ama Kenya ama Istanbul ama Muqdisho ama Gaalkacyo ama Godinlabe ama California ma ogoshahay adaa u diidaya sidaas ayaad kaga badbaadi kartaa burcadbadeedka ayaamahan dambe soo batay oo soo gala baraha bulshada dadkana ku dhibaateeya tan kaloo muhiimkana waxay tahay weliga link laguu soo diray wuxuu doona ha ahaadee ha furin taas waa iga maaragtay awaano iyo digniin ha furin iminka waxaa ku xigaya gmailka securitygiisa aad ayuu muhiim u yahay waxaa la doonaya haddii lagaa helo gmailkaaga waxyaabaha kugu xaraysan akhbaaraadkaaga dhan waa lasoo qabanaya waa la helaya marka si aad uga hortagtid waad furaysa gmailka sidan meesha uu magaca ku qoran yahay hadda kan waa solar bitcoin wada kan solar bitcoin aan ku isticmaalo gmail.com adiga waxaa laga yaabaa caasho ama ibrahim s ku qoran tahay meesha ugu dambaysa ee halkan ama suurka uu ku jiro kan ayaa la riixaa marka riixid waxaad leedahay hoos ayaa tegaysaa manage your Google account ayaa leedahay kadibna waxaad tegaysaa dhankan bidixda oo security ay ku qoran tahay markii aad tegtid hoos ayaad usoo degaysaa iminka ujeeda Kenya iyo waddanka Ingiriiska ayaan ka soo galay marka waad ujeedaa meesha ugu muhiimsan waa kan mid waa use your phone to sign in kan waa adag yahay waa advance marka recommendation ku samayn maayo waxaan isticmaalayaa kii Facebook oo kale oo ah 2 steps verification waa off hadda waxaan ka dhigayaa on ayaan ka dhigayaa kadib waxaan leeyahay get started markaan idhaahdo layers of security iminka tabcan wuxuu ku leeyahay waa in aad gelisaa ayuu ku leeyahay passwordkaagii sababtoo ah waxaad gelaysaa meel adag ayaad gelaysaa oo security ah iminka passwordkaygii aan aqaanay ayaan geliyey kadib wuxuu leeyahay device kan waa advance deviceka ma kaaga soo baaqa ayuu ku leeyahay haddii device ayaan ku xiray telefoonkayga solar portal ayaan ku xiray marka waxaad leedahay show more options waxaad ujeedaa text message of voice call ayaan rabaa ayaad leedahay kan oo optionkan oo sidaan ah ayaan doonaya ayaad leedahay aniga waddanka Kenya ayaan joogaa kadibna numberkayga dusha ayaan ka aqaanaa 745 ayuu ka bilowdaa inta kale waa qarsan yihiin marka iminka markaan halkan soo gaaro waxaan leeyahay next ayaan leeyahay wuxuu ii soo dirayaa verification number code ayuu ii soo dirayaa codekayga marka waa 041040 ayuu isoo diray one of hal mar ayuu kuu soo diraya haddii aadan helin waad ku xelinaysaa marka telefoonkaasna waa muhiim yahay kaa lumin isla markii validation ayuu ku sameeyey iminka waxaan samaynayaa turn on ayaan leeyahay ama shit ayaan leeyahay marka maxaa dhacaya waxa dhacaya code ayaa la ii soo diray to verificationkii waa on ayaa la leeyahay marka maxaa dhacaya waxa dhacaya meel kasta adduunka aan ka joogo haddii la isku dayo in la soo galo
telefoonkayga ama haddii laga soo galo meel kale ama haddii laga soo galo email ahaan loo soo galo wuxuu iisoo dirayaa code oo aad ujeedaan verified ay ku qoran tahay voice ama text haddii uu kaabay text voice ayuu kuusoo diraya telefoon kale waad ku diri kartaa marka waxaa kaloo ku jira waxa la yidhahdo backup codes ayaa ku jira these printable and one time passcode kanna I recommend in la isticmaalo sidab ayaa lagu sameeyaa kan wuxuu kuu samaynayaa one of haddii telefoonka uu ku shaqayn waayo kan ayaa la isticmaalaa kan waa advance marka waxaan dhihi lahaa kuwan ha isticmaalina gmail waa sidaas waxaa ku xiga hotmail ayaa ku xiga same principle isku qaabka ayay u shaqaysaa marka maxaad samaynaysaa hotmail oo microsoft ay leedahay halkan cabdinaasir ismaaciil ayaa ku qoran ujeedaan accountkayga inay tahay marka adigana magac kale ayaa kugu qoran wuxuu ahdo kan ayaa tegaysaa my microsoft account ayaad leedahay markaad soo geshid isla meeshii waxaad raadinaysaa dhanka iyo securityga hooseeda usoo degaysaa waxaad arkaysaa meesha ay ku jirto update securitygaaga waxaad arkaysaa waxyaala aad u fara badan marka kan ayaad riixaysaa update securityga ayaad riixaysaa markii aad riixdid waxaa kuu soo baxaya password ayuu ku weydiinaya tabcan si meesha aad gashay ay tahay meel secure ah oo qofna aan loo ogolayn qof aan adiga ahayn marka security ayaa soo gala marka sign in activity password security meeshaad ka bedeli kartid iyo advance labadan option ayaa noo banaan marka kan sign in activity ayaa ka eegaysaa si aad u eegtid markaa wuxuu ku siinayaa optionka ah an alternate email address email kale ama telefoon kale marka emailka ayaan recommend ka dhigaya waayo email kale mar walba waa option waxaan leeyahay tusaale ahaan emailkayga caadiga ah waa solar portal oo two factor uu ku xiran yahay gmail.com kan waanu isticmaali karaa ama waxaanu isticmaali karaa phone oo isticmaali karaa next ayaan leeyahay kadibna wuxuu iisoo dirayaa code ayuu iisoo dirayaa codeka waa iisoo diray isla markii wuxuu yidhi codeka gal waa 3 codekaas ayuu iisoo diray iminka halkan ayaan ku adkeeyey marka waxa dhacaya marka verify your identity ayuu ku leeyahay marka isla iminka haddana wuxuu iisoo dirayaa inaan verification ka dhigo oo aan identityga iyo verify aan ka dhigo si securityga loo adkeeyo waana iisoo dhacay hadduu iisoo dhacay markuu iisoo dhaco markaa haddii aanan kuu soo dhicin markaa dhanka iyo solar bitcoin verify identity email solar bitcoin @gmail.com ama solar portal kii aan ku diray kan ayaa waxaa liigu soo dirayaa email we will send you verification code to solar to verify marka waxaad leedahay solar portal @gmail weli verificationka ayaan ku jirna aan samayna marka qaabkan ayaad raacaysaa send code ayaan leeyahay marka kii aan ku daray ayaa code iminka liigu soo diraya waxaa la leeyahay code ayaan waxaan kugu soo dirnay solar portal waa la iisoo diray codeka oo identityga aan ku samaynayo marka waa 272262 ayaa la iisoo diray iminka if solar portal gmail match the email waan kugu soo diraynaa verify ayaan leeyahay okay waan ku celinayaa codeka waxaan filaya in wax ka qaldan yahay waa 2722782 weeye 682 ayay ahayd marka qaladka iska ilaaliya maba kaa yeelay iminka waxaan leeyahay verify iminka hore ayuu verification sameeyey waa dhammaatay no thanks ayaad leedahay cid soo geli karta haba yaraatee ma jirto markaa wax walba halkan ayay yaalaan meesha looga jiro email address solarportal @gmail.com oo device-ka alternate-ka waan ku darnay ip addresska waa kan xilliga lasoo galay meesha laga soo galay marka haddii aad u baahan tahay markaa security-ga inaad ku laabatid halkan ayaa tegaysaa iminka waxaad samayn kartaa advanced security setting kadibna waxaad leedahay activitieska halkan ka eegaysa meesha laga soo galay email codeka lagu diro kayga waa kan waad ujeedaan 2 factor authentication ayaa lagaa rabaa markaa kaas waad samaysay kan ayaa waxaa leedahay turn on ayaad leedahay markaa next ayaad leedahay kadibna waxaa kuu soo baxaya verify my identity with an app ma doonayo waxaan doonayaa markaan phone number inaan ka dhigo kii hore waxaan ka dhigay email marka laba security ayaan haysaa iminka marka maxaan samaynayaa isla numberkaygii 745 ayaan ku darayaa oo Nairobi inta kale tabcan way qarsan yihiin for obvious reason kadibna waxaan leeyahay numberkan ayaa verification ka dhigaya phone numberkan code ayaa la iisoo diray haddana codeka ma dhammaadaan maanta dhan way soconayaan codeka la iisoo diray waa codeka 0120 code la yidhahda la iisoo diray next ayaan leeyahay iminka waxaad arkaysaan to verification turned on
verificationkii waa on waxaan leeyahay next ayaan leeyahay finish ayaan leeyahay. marka haddii waad ujeedaa text code-kana ayaa lagu soo dirayaa, emailkan ayaa lagu soo dirayaa. haddii aan halkan eego two factor authentication on, marka waa impossible in facebookkaaga, gmailkaaga iyo hotmailkaaga marka lagaa jabsado. marka xasuuso, emailna waad isticmaali kartaa, telefoonka mobileka waddankaa joogtada waad isticmaali kartaa. wadamada uu ku shaqeeyo roaming international waxa la yidhahdo, tusaale ahaan telefoonkan kenyaatiga haddaan america la tago iyo meel walba hadduu ku jiro waa shaqaynaya, waa roaming. laakiin soomaaliya hadda waxaan maqlaya apple ID-ga in lagu soo daray, ma xaqiijin weli, laakiin telefoonka soomaaliya iminka roaming kuma shaqeeyo. marka email ayay ku dhaanta, 2-3 email ku darsan kartaa si aad uga badbaadid. wixii macluumaad ah mar walba info@sologroups.com ayaad kusoo diraysaan. anigoo ah maxamed cabdinaasir. intaan wada kulmi doonno waxaan idinkaga tegaya billahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.